السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسور أفجوينا دافجوين كعصب تاي وحكى عصر لها إلى نقول صبيرتد فيسبوك يوتيوب تيك توك ميل بانو أركتد هذا ما صنتهاي. محكمة قلت له قبل كاسي NRV مقالة هاجن أي وحي حبس دائم ما أنت ثلاثة لصوت لعفي كحو كنتي نكان إذا مقضو مجلس حلا عبد الله وسوريان ninkan wuxuu gacantiisa ku dilay oo ilmiis oo arkayaan xaaska ilmaha u dhashay asigana xiradiisa ah kanaalka saan ha ugu tagin falow dheh calaamad balasta meesha ka bixi love nasaar sheerna garee mafaan dadka aniga amal 100 kun ay sii dhaafeen anigana weer 25 kun gaari lahaa ninkan naagtiisa wuxuu ku dilay toorey wuxuu ku dhuftay 15 jeer ayuu toorey dhakab ku sii intii tooreydu ku dhufanayay gabadha guriga ugu weyn 13 sano jir waaye gabadhii way qaylisay way booday si walba isku diiday inay ka celiso hooyada laakiin aabaha uu joojin waayay okay wuu ku dhameeyay tooreyda intuu rabay ilaa ay ka dhimato waxaa la soo istaajiyay maalintii talaadada ahayd maxkamadaasi kadibna qaadiga maxkamadda fadhiyay wuxuu warka dhageystay ilmaha iyo dadkii markaasi dacwada ku soo oogay almuhim ninkii waxaa lagu xukumay naftaada ha ku bixisaa xabsi daa'im ninkan sidoo kale maxkamad waxaa lagu sheegay in gabadha intuu qabay bay wada noolaayeenba inuu jirdil u geysan jiray okay sidoo kalena adi mar walba ay murmi jireen ay dagaali jireen ciidan waa Suuriyan waxay ka soo qaxeen dalkaasi Suuriya Jarmalkan waxay soo galeen 2015 laakiin dhacdada hadda oo ninkan talaada lagu xukumay waxay dhacday sida la sheegay 2025 okay marka Jarmalkii rafaadu noqday ilaahana badbaadiyaan ku dhaxay